kan ka duwanaa kulamadii hore waxaana ka soo qayb galay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre oo noqday shirgudoonka kulanka waxa kale oo kulan ku cusbaa oo si diiran loogu soo dhaweeyay gudoomiye ku-xigeenka maamulka maaliyadda gobolka Banaadir Mudane Ibraahim Cumar Mahadalla kulanka waxa hareeyay ka hadalka qorshaha maareynta qashinka horumarada laga sameeyay tababarada diiwaangelinta casriga ah ee shaqaalaha dawladda hoose xamar iyo waliba soo bandhigida mashaariicda horumarineed ee ka socota magaalada Muqdisho ugu horeyn qaabkii u shaqeeyay tubta horumarinta gobolka Banaadir waxa ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre sharaxaad ka siiyay agaasimaha waaxda kormeerka iyo qiimeynta waxqabadka gobolka Banaadir Mudane Cabdiqaadir Muxudiin Dalxa waxa uu sheegay in tubta gobolka Banaadir gool wax ku oola laga gaaray lana og yahay waxyaabaha la qaban doono bilaha soo socda tan inta laga gaaro 2020 inta kadib waxa hadalka qaatay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre waxa uu bogaadiyay horumarka iyo mashaariicda ka socota caasimadda oo ay gacanta ku hayso dawladda hoose xamar ra'iisul wasaaraha ayaa sidoo kale tilmaamay in loo baahan yahay in si hufan loogu adeego bulshada si shacabka gobolka Banaadir ay ugu kalsoonaadaan adeegyada loo qabanayo ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre ayaa aad ugu dheeraaday ka hadalka arrimaha ammaanka nadaafadda iyo dib-u-dhiska ka socda caasimadda Muqdisho sugidda ammaanka Muqdisho dad badan ayaa la wadaaga madaxda iyo shacabka gobolka Banaadir laakiin nadaafadda magaalada Muqdisho waxa ka mas'uula shacab ku nool magaalada Muqdisho sida waxa yiri ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ugu dambeyn ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa sheegay in ugu soo fool leedahay toddobaadka xorriyadda Soomaaliya waxaana codsaday in shacabka Muqdisho helaan magaalo qurux badan oo ay ku damaashaadaan ra'iisul wasaaraha Kasako waxa kulanka maanta goobjoog ka ahaa gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisow ku-xigeenadiisa xogayaha guud gobolka Banaadir agaasimayaasha gudoomiyaasha degmooyinka taliyaasha ciidanka qalabka sida iyo la taliyaasha duqa magaalada Muqdisho